Hey, what's up? This is Gira by Consulting IT. Cashirkii waxaan ka hadlaynaa maanta cashirkii ahaa how to delete domain on the computer, how to delete the computer on the domain, or how to delete computerka on the domain. Waxaan ka hadlaynaa domainka saa computerka ugu tirtir lahayd. Computer aad rabtaa inaad bedeshid, computerkaas domainka uu ku jiraa inaad ka tirtirtaartaa. Marka qaabka ugu tirtiri lahayd computerkii hore oo ay qaabka u gelin lahayd computerka cusub hadday wataan magac oo sema. Marka cashirka hore waxaan ka soo hadalnay how to add the domain on a computer. Caawana waxaa waaye how to delete computers on the domain. Marka adikoo raalli ah waa idin tusinayaa meeshaan dhan aan ka baxayaa, windowga aan iska xirayaa. Marka waxaad tegaysaa server management server aad joogtid, all server. Markaad tegtid waxaad ka tegi kartaa AD and DS. Marka waqti kuma dhimanaya AD and DS. halkaan ay imaanaysaa meesha cashirka ay ku qoran tahay manage and tool view help. Toolkaas ay imaane waxaa kasii tegaysaa meeshaan ay ku qoran tahay active director user and computer. waa kala garaynaysaa windowgii aan joogay daity aan kusoo laabtay. Marka waxaan rabaa computerkii hore oo iga halaabay inaan ka tirtiro domainka ama AD, waxaa loo yaqaano active director user. Marka aniga active director userkayga domainkayga waa kana gby domain. Gby markaad tegtid waxaa kasii tegaysaa domain computers. waa taabanaysaa hal mar aad taabane midigtaada waxaa arkaysaa kombiyuutarada magacyadooda. computerka ama deviceka aad rabtid inaad ka tirtirtid domainka waa inaad ogaataa magaciisa ama convention waxa loo yaqaano magaca uu wato, kabacdi aad tirtiri kartaa. marka laba waxa waa idin tusinayaa. marka ugu horeysa waxaan tusinayaa computerka adiga iskale, laakiin waxaa rabtaa qofka userka inaad disable ka dhigtid. ama computerka ku celina computerka adaa iskale, kambaniga leh. markaan ka wada adaa iskale, kambaniga leh. kambanigana wuxuu rabaa computerka inuu magaca ka tirtiro ma rabo, laakiin wuxuu rabaa userkii uu siiyey inuu disable uga dhigo, oo markuu uu userka ama uu shaqada ka tago kabacdi uu computer magac cusub uu sameeyo uu tirtiro. labadaas way waa idin tusinayaa. marka ugu horeysa computerka waa computerka aniga aan rabo inaan iska tirtiro. computerka waxaa laga yaabaa cilad ahaan computer hore inuu noqday corrupted waxaa laga yaabaa inuu hard driverka uu shaqaynin. aan rabo hard driver cusub inaan ku daro, ama computer cusub, computer oo duugu ahaa computer cusub aan rabaa inaan geliyo. waa highlight garaynaysaa. markaa highlight garaysid left click aa leedahay. left click marka aad dhahdo wax kusoo baxa optiono badan. add to the group, disable the account, reset the account, move. waxaas dhan optionka aan rabo marka waa optionkan aan rabo. marka haddaan rabo computerka inaan disable ka dhigo halkaasaan tegayaa. Are you sure you want to disable? Yes. Okay, computerkan has been disabled. marka aan rabo computerka inaan isticmaalo aniga, laakiin userkii aan ugu talagalay aan isticmaali karin. waa aragtaa halkaa keliya waay. marka kugu celinayaa markaa rabti inaad disable ka dhigtid. markaa rabti disable inaad ka dhigtid ama unable, waa highlight gareyne. halkaa marka ay soo baxda unable account waxaa loogala jeedaa computerkaada waa disable. qofkii hore u use gareynaya ma isticmaali karo. ma fahanti? marka haddaa rabtid halkaasaa imaane computerkaa rabtaa inaad ku celisid inaad user kale ama qof kale oo shaqaalaha inaad siisid, right click aad leedahay wuu kuu sheegayaa. wuxuu ku leeyahay object computer name yara has been enabled.
okay aan leedahay marka taas waa qaybta koowaad qaybta labaad waxaan rabaa computerkan inaan domainka ka tirtiro domainka maxaa la jeedaa inaan domainka ama ad active director userka aan geliy inaan ka tirtiro aan dib meeshaadba ugu arkinbo sidoo kale waa ku laabanaysaa highlight ku tahay right click aa leedahay mar labaad meesha ku laabane delete waa delete gareyne are you sure you want to delete the computer name yes halkaa marka waxaa kuu cad maxaa halka firi wuxuu ahaa aniga gptc it d04 wii ahaa waadaa la socoteen waa kana waa tirtiray iguma jiro marka saasay tahay halkaasaa tegaysaa waxaa leedahay refresh aan rabaa inaan dhaho view ku socone ama waa iska xiri kartaa saa ku ogaatid inuu baalka meesha ka baxay waa xiraysaa de ad-ga kabacdi halkaasaa tegay restart computers marka aad restart computer aad ku samaysid systemka dhan wixii aad tirtirtay wuu ka baxayaa restarting waxaana fiican mar walbo marka aad wax ka bedeshid computerka ama aad wax ku kordhisid systemka u galo waa inaad computerka aad haysatid restart ku samaysaa then janjiga aad samaysay affecti ama waxa waaye way isbedelaysaa raal noqda xoogaa yar uu qaadanayaa computerka wixii uu qaadanayaa restart computers soo socda please wait iska sugo aa lagu leeyahay waa inaa iska sugtaa intuu ka dhamaanaa reset so I'm using Windows Server example Windows Service 2012 R2 oo ah qaybta networking haddii aad rabtid inaad baratid system administrator networking inaad noqotid waa in aad taqaanaa tuulashaan hadda aan ka hadlayo okay uu dhamaaday marka si ku ogaan karaa ujeedaan aa loo galaynaa raalinimada ogaalu slow noqday keyboardana waa inaan loo galayo wuu soo socdaa raali ka noqda leedahay control alto delete waxay soo baxay meesha aan ku taabgareyn lahaa this is my domainkeyga waa serverkeyga waaye iskayga agshanaya okay I'm logging my server waxaan ku laabanayaa meeshii kow ad-gaan ku laabanayaa server management waxayna qaadane waa in aad u leedahay samar badan haddii aad rabtid inaad computer wax ka bedeshid waxaa laga yaabaa applicationada intuu howlgareynayo waa inaad iska sugataa waxbaa ku degdega haddaa mar walba aad kaligaraysid waxaa laga yaabaa inay wixii waqti kugu sii qaataan marka adikoo raali ah waa inaad sugtaa ilaa uu programka ka dhamaana hadda waa kana waxay hadda waa dhamaan rabaa serverayga magaca isgelinaya waa kaasa gigabyte.com okay halkaasaan tegayaa iska xirayaa toolkii aan ku laabanayaa
anoo refresh ku sameeyey waxaan tegayaa active directory user and computers. Okay, halkana weli haddaan iska xiro computerkii domainka aan ku laabto domain computers waa ujeedaa ilaa hadda iguma jiraan. Marka cashirka intaasuu ku egyahay. Kii hore waxaan ka soo hadalnay how to add device on the domain. Kanna waxaa waa how to delete the device on the domain or AD active directory user. Waa kaasaa intaasay ahayd. Caawa cashirkan intaasuu ku egyahay ama maanta cashirka intaasuu ku egyahay. La socda na soo raaca. Haddii aan confused ka dhignana raali ka noqda. Bye.